barnaamij lagu cambaaranayo colaadda ka soo cusboonaatay magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa maanta ka dhacday degmada Cabduwaaq waxaana dadka dibadbaxayaasha ahaa gabi ahaanba eedayn ay dusha kaga tuureen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay sheegeen in isagu ka dambeeyay isla markaana hurinayo colaadda ka soo cusboonaatay xarunta gobolka Mudug ee magaalada Galkacyo waana kuwan qaar kamid ah haweenkii oo ay ka hadlayeen dibadbaxooday waliba ujeedada maanta barnaamijkan ay u qabteen arinta uga hadlahaynaa waxaan uga soo barnaamijnay arintaas oo qorraxdana keentay arinta ka socota galgaduud iyo mudug balcad Galkacyo waxa ka socda ayaan ka soo barnaamijnay afarta barjo ama galgaduud ha noqoto ama mudug ha noqoto colaad baa ka jirta waxa madax u dabshiday oo madaxweyne ugu noqday oo qabyaalaysta u noqday oo cadaalad darro u noqday oo damiirkiisa iska siibay madaxweynenimadii ka baxay waa Xasan Sheekh Maxamuud madaxiisa Allah ka shuba waxa Soomaaliyeed waxaan leenahay dagaal xoogan ayaa iska soo noqnoqday isla markaana ka soconaya Galkacyo taasoo ay sheegeen faragelin siyaasadeed ku jirto isla markaana xubnaha ugu sarsareeyay dowladda Soomaaliya inay ka dambeeyay arrintan sida dibadbaxayaasha ay sheegeen Madax Xasan Diini gobolada Soomaaliya Cabduwaaq